Warbixintan waxaan diiradda ku saari doonaa heshiiskii ay wada galeen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ee la xiriira arrinta qaadka, taasi oo beeraleyda dalka Kenya culays ay ku saareen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta inuu la heshiiyo Soomaaliya si dib loogu bilaabo howlihii dhoofinta ee qaadka. Dadka Soomaaliyeed qaarkood waxay sheegeen in lagu degdegay in heshiis lala galo dowladda waqtigeedu dhammaaday ee uu hogaaminayo Uhuru Kenyatta, waxaana tani ay qayb ka tahay ololaha weyn ee doorashada dalka Kenya. Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay inuu olole ugu jiro Raila Odinga oo ahaa hogaamiyihii mucaaradka ugu weynaa dalka Kenya, isagoo markii dambe la heshiiyey. Wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa tagay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, halkaasi oo kulamo kula soo qaatay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, iyagoo ka wada hadlay sidii loo soo celin lahaa xiriirkii ka dhexeeyay labada dowladood, dibna loogu bilaabi lahaa howlihii dhoofinta qaadka. Diyaaradaha dalka Kenya ayaa dib u bilaabay in ay qaad u soo dhoofiyaan dalka Soomaaliya, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii dhowaan ay magaalada Nairobi ku gaareen madaxda Soomaaliya iyo kuwa Kenya. Waxaana madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta markii uu ka qayb galay caleemasaarkii Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu sheegay in dib loo soo celin doono xiriirkii wanaagsanaa ee u dhexeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Xiriirka labada dowladood ayaa xumaaday kadib markii soo kala dhexgalay khilaaf la xiriira arrimaha diblomaasiyadda, waxaana ugu weynaa arrintii muranka badda oo dowladda Kenya ay ku dooneysay in ay ku qaadato qayb ka mid ah badda Soomaaliya, taasi oo madaxweynaha xilligaas xafiiska joogay ee Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka diiday in Kenya uu la galo wax gorgortan oo la xiriira arrintaasi. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa wax walba u sameeyay sidii loo joojin lahaa dacwadii ka talay maxkamadda ICJ, waxaana uu doonayay Uhuru in arrinta muranka badda ay dhexgalaan hogaamiyaasha qaaradda si xal looga gaaro, waxaana wax walba uu sameeyay diiday madaxweynihii xilligaas xafiiska joogay ee Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Iyadoo khilaafyo badan ay jireen, sanadkii 2020 waxaa dilaacay cudurka COVID-19 kaasi oo farabadan ku hayay guud ahaan caalamka. Waqtigaasi Soomaaliya waxaa imaanayay diyaaradaha qaadka dalka Kenya si loo yareeyo khatarta iyo faafitaanka cudurka COVID-19. Dowladda Soomaaliya waxay joojisay diyaaradihii qaadka dalka Kenya, waxaana isla markii qayladhaan bilaabay beeraleyda qaadka dalka Kenya, waxayna sheegeen in noloshooda inta badan ay ku tiirsanayd ganacsiga qaadka. Waxaana jiray khilaaf weyn u dhexeeyay labada dowladood. Soomaaliya waxay xiriir fiican la lahayd dowladda Itoobiya, waxayna wada galeen heshiis dhanka ganacsiga. Diyaaradaha qaadka dalka Itoobiya ayaa bilaabay in ay qaad keenaan dalka, taasi oo dadka qaadka cunayay dhibaato ku noqotay in ay cunaan qaadka laga keeno dalka Itoobiya. Hooyooyinka qaar ee ka ganacsanaya qaadka waxay sheegeen in noloshooda ay ku adkaatay markii la joojiyay qaadka Kenya, waxayna tilmaameen in dhibaatada ay ku noqotay in ay helaan biilka guriga. Markii horena waxay sheegeen in ilmahooda u dhigan jireen iskuulo iyo jaamacado. Dadka qaar waxay ka digeen in dib loo bilaabo keenida qaadka Kenya, waxayna sheegeen in dhibaatooyinka laga dhaxli karo ay sabab u tahay burburka qoysaska. Heshiiskan ayaa dani ugu jirta dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya. Fikirkaaga nala wadaag.